Gurgure waxa ay ahaayeen ganacsato caan ah. Gurgure oo magaciisa runta ahaa Maxamed Madaxweyne Dir waa qabiil taariikhi ah oo aad u baaxad iyo fac weyn, wuxuuna dega inta u dhaxaysa gobolka Sanaag ilaa Awaash iyo dhulka Oromada. Odayaashu waxay yiraahdaan in uu Gurgure yahay qabiilka Soomaalida ugu daaweyn. Waxaa tusaale u ah magacyada iyo hooyooyinka qaar ka mid ah qabiilada Soomaalida sida Gadabursi, Cisse iyo Isaaqba. Micnaha magaca Gurgure waxa uu ka soo jeedaa gurgur, oo macnihiisu yahay in laga guuro deegaan loona guuro deegaan kale sida reer guuraa ah. Kan kalena waxa uu ka yimid ereygii hore ee af Soomaaliga ee gorgortan, oo macnihiisu yahay in laga gorgortamo qiimaha marka wax iibinta. Odayaashii hore waxay sheegeen in labada macneba ay khuseeyaan beesha Gurgure, maadaama ay ku dhaqmi jireen habnololeedka reer guuraaga iyo ka ganacsiga labadaba. Gurgure inay ahaayeen ganacsato lagu qiyaaso ilaa qarnigii 10aad, laakiin waxay ku soo caan baxeen wakhtiga Ifaad iyo Adal, maadaama ay isku xireen Saylac iyo Harar. Gurgure waxay Saylac ka keeni jireen maryo midabaysan, milix, sonkor iyo wixii la mid ah. Waxay Harar ka keeni jireen oo Saylac ku iibin jireen maqaarka ama harag, xawaashka, foox iyo xoolo iib ah sida geel iyo ariga. Jidka ganacsiga ee mari jireen Gurgure waxay ka dhiseen tuulooyin aad u horumaray xilligii suldanadii Ifaad iyo Adal. Tusaalooyinka tuulooyinka loogu magacdaray awliyadii Gurguraha ah waxaa ka mid ah Biyo Gurgur, Biyo Baxay, Awooble, Sharlaganaadi, Cabasa, Camuud, Awbare, Awbuube, Below, Harla iyo Diridhaba. Waxayna ka mid ahaayeen qabaa'iladii Soomaaliyeed ee ciidamadii ugu badnaa jihaadka Imaam Axmed Gurey ku qaaday Xabashida. Ciidan Gurgure oo ku jiray jihaadka Axmed Gurey hogaaminaye oo waxay ahaayeen 1,000 nin oo lug ah iyo 30 fardooyin. Gurgure, Mareexaan iyo Hawiya waxay ka mid ahaayeen qabaa'ilka Soomaalida ee ka koobana 1,000 ka mid ah waranlayaashii ama askarta ugu wacna uguna caansanaa. Gurgure waxa weeye magacani awowgeen magaciisa Madaxweyne Dir waa gobolka Sanaag ku aasan yahay. Qabriga Sheekh Gurgura la yiraahdaa. Sheekh Gurgure waxa iskale magacan Soomaali oo dhan, isaguna waa duqii Soomaali oo dhan weey. Magacan Gurgure marka aabaheen baa duqii Soomaalida ah. Marka magacay Gurgure uu soo wareego oo Madaxweyne Dir oo dhan baa iga wada ahaa zamankii hore. Waqtigii Axmed Gurey iyo magacan Gurgure Madaxweyne Dir wixii dhalay oo dhan baa magacan wada lahaa. يا أحمد ديري كبعد جرجان جيرسي كصهرة المجرسي أي ما قاعد كصهرة جرجورة ثم قال جرجورة هندي إلا برعوه الجيسة ثم قال إلا قرصم يا إلى قلبت كان إلى إثيوبيا ها أما أي Gurgure magaca Soomaaliyeed weey. Magaca isagu duqii Soomaali waxa. Sheekh Gurgura la yiraahdaa. Magacii baa xaqan magacii culasiya. Magacii duqa magacii duqa Sheekh duqnimadii oo aabaha yaa Gurgure magaca halkaas ku soo raacay. Gurguraha kaliya ma aha Gurgure gurida Soomaali oo dhan baa gurgurta Soomaa xoolo dhaqato dhan baa gurgurta Soomaa marka magacan Gurgure anaguna soo raacay anagu soo haray buugaas tuxfatu zamana walida tuxfaha zamanka futuuxa xabashna walida tuxfaha noyra macna tuxfa waa cilmigii zamanka te magaciisa tuxfaha zamankana waa la futuuxa xabashna walida qabiilada Soomaaliyeed ee waqtigaa jiray oo dhan ayuu qoraya. Muxuu ku qorayaa? Imaamka qabiil kastaba yidhi ciidankeena. Qabiil kastaba ciidan buu soo qoray. Qabiil kastoo ciidan keenay oo waqtigaa jiray waa qoran yahay. Kitaabkaas la yiraahdaa. Kitaabkaasi madxafka museum la yiraahdaa.
متحفك هرر كيال هرر إثيوبيا ولا هلا مصرنا ولا هلا marka luqado kale waa lagu turjumay laakiin asalkiisu waa carabiga lagu qoray waqtigii Axmed Guri la socday Axmed Ibraahim Guri waxaan u naqaanaa imaamkaas imaam Axmed Ibraahim Guri waxaan u naqaanaa inuu madaxweyne dir yahay inuu curadkii madaxweyne dir yahay oo ligila yahay inuu ku isaan u naqaanaa anagu odayaashu ka soo gaarnay laakiin kitaabkaasi Futuux al-Xabash wuxuu qorayaa halkuu ku dhashay meel dirdhaba korkeeda dirdhaba iyo harar u dhaxayso dee xagga harar markii loo socdo buur baa la yidhaha Hubata buurtaas iminka gurgudaada ka batay ilaa iminka halkaa inuu ku dhashay ayaa kitaabkaas ku taala kitaabka Futuux al-Xabash halkuu ku dhashay ya qabiilkiisa laguma qorinaya halkuu ku dhashay baa la qoray waana deegaanka gurgudaha waa qodobka labaad wuxuu qorayaa kitaabkaas ree abtigii buu qorayaa ree abtigii waa geri garaadka geri ayaa abtigiisa garaad mataan oo la socday oo garaadkii geriga ah ya oo isaga la socday oo gerigu ciidan badan buu keenay garaadkaasi isagana la socday ee ciidan badan keenay gerigana garaad u ah ayaa abtigii ah nin geri hooyadii geri tahay wey nin dibad ka yimid maaha nin wadanka Masar ka yimid oo nin carab oo halka laga soo diray maaha waa nin Soomaali oo Hubata ku dhashay weeye oo gerina abtigii yahay sida Futuux al-Xabash ku taala nin madaxweyne dir oo curadkii madaxweyne dir ah ummado badan baa sheegta meelo badan buu jiraa wuxuu ummadoo dhanba u sheeganayso yiyaa meel kasta ku jira ogaade buu yahay wuxuu yahay arax weyn wuxuu yahay maxaan ku radaa saaq wuxuu yahay gadabuusi ku jiraa oromo ku jiraa la yile ciiso ku jiraa la yile gurguru ku jiraa la yile ya cid kastoo uu ku jira way sheegan kartaa ya gaas soco